الرحمن الرحيم anigoo maamulka kulliyadda nutrition-ka ee jaamacadda Edna Aadan waxaan doonayaa inaan warbixin yar oo ku kooban kulliyadda nutrition-ka aan halkan kula wadaago. kulliyadda nutrition-ka waxa lagu bartaa ama ardayga loogu dhigaa sidii loo daweyn lahaa ama loogu hortagi lahaa nafaqa darrooyinka noocyadooda kala duwan, taasoo ay ka mid tahay nafaqa yarida ku dhacda caruurta ama haweenka, taasoo ay ka mid yihiin cilaanka ama hagaaska ama ilmihii oo weydooba. sidoo kale adduunka waxaa sanadihii ugu dambeeyay ku soo badanaya xanuuno aad u badan kuwaasi oo ka dhasha cunooyinkan aan isticmaalno, ayna ka mid yihiin macaanka, dhiigkarka, beersubaga iyo kansarka, kuwaasi oo dhammaantood lagaga hortagi karo ama lagu daweyn karo iyadoo la isticmaalayo nafaqada. haddaba ardayda barata kulliyaddan nafaqada waxa ay ku shaqayn karaan mihnado kala duwan, taasoo ay ka mid tahay in ay dadka ay ku daweeyaan nafaqada ama nutrition-ka. sidoo kale waxay ku shaqayn karaan iyagoo noqon kara la taliyayaal dhinacyada kala duwan ee nafaqada, sida nafaqada ciyaaraha, sida nafaqada waxa weeyaan caruurta, nafaqada hooyada iyo wixii la halmaala. qofka barta mihnadan waxa uu la shaqayn karaa hay'adaha kala duwan kuwaasi oo ka hortaga ama xakameeya noocyada kala duwan ee nafaqa darrada. haddaba halkudhaga kulliyadani waxa weeye in aynu u isticmaalno cunnada si aynu uga hortagno xanuunka, halka aynu dawada u isticmaali lahayn cunno ahaan.